مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan goordhow bilaaban doonaa casharkii buugii labaad MS Word. waxaan ku qaadan doonaa xoogaa oo hordhaca hadduu ilaahayna gaarsiiyo. waxaan furanayaa safxadda MS Word. markaan furto waxaa ii soo bixi doono page cad oo ah MS Word-ka oo 2017. marka saad u jeedaan page-kan cad oo ah MS Word-ka wax uu ku qoran yahay malaha. marka aniga ayaan rabo inaan wax ku qorto oo aan sameeyo document oo habaysan. marka waxaan qorayaa waxaan ahay arday dhigta iskuulka Somali Educational Academy. marka inta aan qorno waxaan ahay arday dhigta iskuulka Somali Educational Academy. hadda fartiina way noo yartahay, waxaan rabaa farta inaan hagaajiyo, farta xoogaa weyneeyo oo aan ku sameeyo wax la yiraahdo arrangement. marka waxaan sameynayaa highlight am control A ayaan leeyahay. kadib waxaan furayaa halkan oo font size-ka. markaan furo waxaan dooranayaa cabirka size-ka aniga aan rabo. marka size-ka aniga aan rabo ayaan dooranayaa. markaan doorto for example waxaan qaadanayaa lambar iyo 4 ama 6 iyo 10. meeshaan waxaa la yiraahdaa meeshii lagu bedelo face-ka oo ah qaabka qoraalka uu qoran yahay. meeshaan ayaan furayaa. kadib face-ka aan u baahanahay ama qaabka aniga aan u baahanahay ama design-ka aan rabo ayaan ka dooranayaa. marka farta waxaan dooranayaa time newsroom ama ubadkaartid ayaa dooranaysaa. okay, markaan doorto oo waxaan ahay arday dhigta iskuulka Somali Educational Academy. okay, fartaad waa weyneeyey, size-ka waa weyneeyey iyo fartan waa bedelay. meeshaan kale iyadana waa meeshaan oo qoran tahay ground font oo ah meesha lagu weyneeyo. eedan oo capital-ka ah waa meesha yacni farta aad ka weyneyn kartid. intan small-kan waxaa mid aad keeni kartaa. for example hadda markan aan click aan siiyo, aan dhag aan siiyo, farta ayaa weynaanayso. laakiin kan kale ayaa taabanaya, farta weynaanaysa oo meesha ani arabi ayaan ku sameeyaa oo ah 16. kuwana ku soo haray kan waxaa la yiraahdaa bold. farta waxay ka dhigaysaa balac. okay, askiisaan ku celino. mid kale waxaa la yiraahdaa italics. ayas waxaa laga soo gaabiyay italics. asee markaa click aan siiyo, farta ayaa waxay noqonaysaa jeejeed. mid kale waxaa la yiraahdo underline. underline-kan wuxuu ka saacidayaa in mawduuc markaa qoranayso kale in mawduuc fiican kadibna xariiqada asaasiyan oo kale. haddii xariiqadan oo daciif oo khafiif ay noqoto, halkan ayaa furaysaa oo waxaa ka dhigaysaa midka adiga u baahan tahay. marka intaan ayaan ku sameynaa. hadduu ilaahayna gaarsiiyo casharada way sii socon doonaan.